السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كني واقيب كمدا فسيراد الريوينك وليغا مكو ريوتay adoo dhimanaya maxayse ka macno tahay riyada lagu riyoodo dhimashada qofkii noolaa oo dhimanaya arrimo khatar ah laga yaabaa hadda koor inaad maqal ayaan halkan kugu soo gudbinaynaa waa kala macno duwan yahay macaani kala duwan kuwa wanaagsan iyo kuwa xun ay riyada noocaas tilmaamaysaa waxaa la yiraahdaa geerida riyada dhexdeeda lagu riyoodo macnaheedu waxaa ka mid ah waxay tustaa in aad celinaysid amaano lagu dhiibay ama waxay kaloo tustaa qofkii xanuunsanaa oo xanuunkiisii ka bogsooday oo ka caafimaaday ama qofkii xabsiga ku jiray oo xabsigiisii ka baxay waxay kaloo tilmaantaa oo ay tustaa macnaheeduna noqon karaa qof kaa maqnaa oo muddo ay isweydeen inaad kulantaan oo is heshaan waxaa kaloo la yiraahdaa geeridoo lagu riyoodo waxaa macnayowgeeda ka mid ah diintaadoo nuqsaani soo gaarto ama kaa fasahaado iyo adduunku qofku ku kibro laakiin waa markay la socoto ayaa la yiraahdaa oohin iyo qaylo noocay doonto ha noqoto markii noocaasad ku riyootid haddii ciidda lagu aaso macno fiican ma tilmaanta riyadaas qofka ku riyoodo is arka asagoo dhintay laakiin intaa wax dhaafsiisan muuse arag oo qaabkii geerida iyo muuse arag iyo kafantii iyo howlahaas taasi waxay tilmaamaysaa dumitaan gurigiisa soo wajaha ama indhala'aan ama cimri dheerar waxaa kaloo la yiraahdaa qofka hadduu ku riyoodo geeri macnaha kale tilmaanta waxaa ka mid ah safar ama faqri qaar waxay dhahaan dadka fasira riyooyinka markii qofku ku riyoodo geeri ayadoon la kala qaadin asalkeedu waxa weeye guur laana qofka dhintay wuxuu u baahan yahay in la carfiyo la dhaqo sida qofka guursanayoo kale kaasna waa macno fiican oo haddaad nooca ku riyootid aada guursan welid insha allahu tacaala waa guursanaysaa mid khayr qaba allaha ka dhigo waxaa kaloo la yidhahdaa laakiin qofka ku riyooda isagoo dhintay oo la xambaaray laakiin lama aasin oo aasitaan muuse arag taasi macnaheedu waxa weeye cadowgiisu ka adkaan doonaa insha allah laakiin qofka ku riyooda geeridiisa kadib inuu noolaaday insha allahu tacaala hadduu faqri leh ama waxla'aan hayso qani buu noqon doonaa insha allah ama dembi ayuu ka toobad keeni doonaa qofka loo sheegay inuu dhintay laakiin aan dhiman macnaheedu waxa weeye insha allahu tacaala booska shuhadada ayaa la istaajin doonaa qofka ku riyooda ahlu qubuurkii oo qubuurta ka soo baxay dadka cuntadoodiina cunay taasi macnaheedu waxay ka dhigan tahay ayaa la yidhaahdaa in sicir barar uu ku dhacayo dadka qofka ku riyooda qof meyda oo dhintay laakiin qaab fiican isagoo qoslaya ku arka insha allahu tacaala sidaas uu noqon doonaa asna qofka ku riyooda isagoo ku tukanaya qof meyda wuxuu ku qaldami doonaa saaxiib xun qofka ku riyooda qof uu yaqaano oo dhintay asagoon dhiman macnaheedu waxa weye qofka hadduu wanaagsan yahay wanaaggu uga dayan doonaa qofka ku riyooda madaxweynihii oo dhintay macnaheedu waxa weeye beledkaas iyo dalkaas ayaa kharrimaya geeridu waxay ka dhigan tahay qoomamayn uu qofku ka qoomamaynaya dembi weyn qofka ku riyooda asagoo dhintay weliba qaawan macnaheedu waxa weeye baahi ee soo wajahaysa qofka ku riyooda ilmo uu dhalay oo dhimanaya ama dhintayba riyada noocaas hadduu ku riyoodo ruuxu insha allahu tacaala cadow xumaan la doonaya ayuu ka badbaadaya macnaheedu waa sidaas geeridu waxay calaamad u tahay khayr iyo wanaag waa qofka ka cabsanaya markuu ku riyoodo geerida qofkii cabsida ama foobiya aad u badan ka qabay geerida hadduu ku riyoodo geeri macnaheedu khayr baa u soo socda insha allah dhinaca kale qaarkood waxay yidhahdaan murugaa soo wajihi doonta qofka ku riyooda walaalihiisoo dhimanaya macnaheedu waxa weeye waxaa dhimanaya cadowgiisoo baaba'aya qofka ku riyooda inuu meyd raacay macnaheedu waxa weeye wuxuu safri doonaa safar dheer qofka ku riyooda qof dhintay oo soo noolaaday amarkiisa insha allahu tacaala ilaahay u noolaynaya qofka ku riyooda isagoo wejigiisu madow yahay macnaheedu riyadaas waxa weeye gaalnimo ku dhimanaya qofkaas qofka ku riyooda isagoo salaamaya dad dhintay macnaheedu waxa weeye dad dhunsan baa ilaahay sababtiisa ku soo hanuunin doonaa qofka ku riyooda qof dhintay isagoo siinaya waxaas ama ha la cuno ama ha la cabo ogow qofkaas dhibaato ayaa asiibi doonta macnayowga riyada geerida lagu riyoodo kuwaasaa ka mid a macnayow kalenoo tiro badanna waa jiraan insha allahu tacaala dhammaanteen riyooyinkeenna khayr allaha nooga dhigo السلام عليكم.